بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena dhabka hadal qaybtan waxaan kaga hadli doonaa dhinaca Somaliland magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland waxa loo doortay maayarka magaaladaasi ama maayarka caasimada Hargeysa Abdikariin Axmed Mooge oo ah siyaasi dhalinyaro isla markaasina ku soo baxay doorashadii golaha deegaanka ee dhawaan ka dhacday Somaliland Abdikariin waxa uu ahaa xildhibaankii ugu codadka badnaa doorashadii ka dhacday Somaliland guud ahaan sida la tilmaamay waa xildhibaanka ugu codadka badan tan iyo intii la asaasay Somaliland ee loo doorto maaragtay shakhsi kaliya oo cod intaasi leeg uu ku helay 26,000 oo cod in ka badan ayuu helay Abdikariin waxa uu u sharaxnaa maayarka magaalada Hargeysa ee caasimada waa Somaliland rag kale oo ka mid yahay Solteko oo ahaa maayarkii hore ee caasimada Hargeysa ayaa ku garab la siiyay isla markaasina iyaguna u hanqal taagayay in ay xilkaasi maayarka caasimada Hargeysa hantaan ha yeeshee isxulufaysi iyo is-urursi badan kadib kulamo uu la yeeshay madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Abdikariin Mooge ayaa ugu dambeyn waxa maayarka magaalada Hargeysa loo doortay Abdikariin Axmed Mooge Liibaan haddaba waxaynu eegi doonaa Abdikariin iyo doorashadiisa waxaana ila jooga saaxiibkan dhaado Barre Yuusuf Ibraahim jaamac baa inta badan booskan lagu arkaa inkasta oo maaragtay barrana horay uu maaragtay barnaamijka falanqaynta aad uu maaragtay caan ugu ahaa haddana waayadii ugu dambeysay kursigayga ayuu ciriiri ku hayay oo dhinaca jaamac ayaa maaragtay u badnaa marka ana jaamac ayaa dambi adna kaga ciriiri ku hayay waa mahadsantahay soo dhow ilka casow bal hadda ka waran doorashada Abdikariin Mooge iyo waxyaabaha ku gadaamanaya ka tilmaami karo nuru aad mahadsantahay daawashan salaameynaa horta waxay ahayd 30kii bishii la soo dhaafay 31kii bishii May la soo dhaafay 2021 markii Somaliland doorashadii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ay ka dhacday doorashadaas waxay ahayd doorasho aad isha loogu wadahayay gaar ahaan deegaanada Soomaalida waxa joogay oo waxa weeye Somaliland tagay xilligii doorashada ay dhacaysay korjoogayaal caalamiga si ay ugu koorgalaan doorashadan iyo qaabka ay u dhacayso iyo sida maaragtay waxa weeye uu wax u socdo saddex xisbi oo ah saddex xisbi ugu caansan ama ugu tunka weyn Somaliland oo kala ah Ucud Wadani iyo Kulmiye ayaa ku tartamayay oo xildhibaano kala metelaya saddexdaasi xisbi labada xisbi ee mucaaradka iyo xisbigan muxaafidka ah ee Kulmiye iyo Wadani iyo Ucud iyagu maartay mucaarad ah ayaa ku tartamayay waxay noqotay marka doorasho aad loo soo dhaweeyay qaabka hufnaanta iyo maartay xalaasha iyo daahfurnaanta iyo maartay kalsoonida ee ku dhacday iyo sida maartay xildhibaanadii waxa weeye ama maartay musharaxiintii kala duwanaa ee saddexdan xisbi waxa weeye kala metelaya ay ugu tartameen sidii nabadgelyada lahayd waxa weeye jawigii deganaa waxa weeye isfahamkii buuq la'aantii ay doorashadan ku dhacday markii doorashadan ay dhacday ama ay dhahday markii doorashadan oo la hado uu socday waxa jiray xildhibaano aad loo hadalhayay oo waliba hadda waxa weeye siyaasadda soo galay Somaliland oo ku tartamayay kuraasta kala duwan ha noqdaan golaha wakiilada ama ha noqdaan golaha deegaanka laba musharax waxa jiray dabcan aad loo hadalhayay oo Soomaalidu ay aad waxa weeye isha ugu haysay oo sawiradooda iyo maartay hadallada ay ka jeediyaan goobaha fagaaraha dadweynaha markay ka hadlayaan aad dadku ay maartay isku wadaagayeen baraha bulshada labada musharax waxay kala ahaayeen Abdikariin Axmed Mooge Liibaan iyo sidoo kale ninkii ahaa Barkhad Batoon labaduba waxay heleen codad aan caadi ahayn markii doorashada ay dhacday ninka la dhaho Abdikariin oo dabcan isagu hadda ah ninka hadda aan ka hadlayno 26,000 oo cod ayuu doorashada ka helay waxa lagu tilmaamay inuu yahay intii Somaliland ay ku dhawaaqday Soomaaliya inay ka go'day doorashooyinkii ka dhacay musharaxii ugu codadka badnaa codadka ugu badan doorasho ka helay ayaa lagu tilmaamay inuu record uu jabiyay markii codadkaasi uu helay isagoo markii horena u hanqal taagayay xilka maayarnimo maartay Hargeysa waxa soo batay
rajadii ahayd in uu heli karo maaragtay waxa weeye kursigii ama xilkii markii hore uu tartamayay ka xildhibaanada marka laga soo tago ahaa maayarnimada Hargeysa aad baa loo boogaadiyay waxa jira musharaxiin fara badan oo dabcan la tartamayay isaga oo iyaguna doonayay inay noqdaan maayarka magaalada Hargeysa oo uu ku jiro ninka hadda xilka ku fadhiya dabcan maanta kulay wixii ka dambeeya boorsooyinkiisu qaadanaya Solteko oo asaga nin dhalinyaraha ah waxa marka xogaa yar cabsi laga muujinay maadaama ninkan uu xisbiga wadani ee mucaaradka uu ka socday in waxa weeye kulmiye oo muxaafadka ah laga yaabo in doorashada ay ku shubtaan xilka maayarkana ay ku guuleystaan Sana Cabdikariim oo ninkii ugu codka badnaa doorashada kursigana rabay uu meesha maartay uga baxo isla markiiba kulamo ayuu sameeyay madaxweynaha Soomaaliland ayuu la kulmay ilaa 2 jeer buu la kulmay maalmo gudahood markii hore codsi buu u jeeday madaxweynaha la kulmo madaxweynaha ayaa aqbalay uu u tagay madaxweynuhu wuxuu ku dhibaan garab taaganahay marka waxa loo arkay inuu yahay marka la fiiriyo xilliga ololaha uu ku jiray hadaladii uu jeedinayay in uu yahay nin dhalinyaraha oo aqoon leh oo maartay firfircoon oo waxa weeye Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa wax badan ka qaban kara maadaama dadku inta badan ay ka cabanayeen maayarkii hore iyo maamulkii hore in marka la fiiriyo khudbadihii uu jeedinayay sidii maartay dadka uu qalbiyadooda u kasbaday in uu noqon karo ninka waxa weeye kursigan waxa weeye ku guuleysan kara una qalma hadii uu ku guuleysan wax badan ka qaban kara Hargeysa oo dabcan ah caasimadii Soomaaliland kadib markii madaxweynaha la kulmay haddana waxa mar kale kor u soo kacay oo sii batay rajadiisii ahayd inuu xilkaasi uu ku guuleysto musharaxiin kale oo fara badan baa jiray oo la tartamayay isaga oo kursigan iyagana aad u daneynayay oo ka kala socday xisbiyada kala duwan waxa weeye ucud oo kaleete iyo maarta kulmiye markii uu kulamo kala duwan uu la yeeshay xataa musharaxiintii kale iyo rag badan oo raggii maarta kula tamay meesha iyo xildhibaanadii isaga soo dooranayaba rajo maartay waxa loo muujiyay niyad wanaag rag badan baa tanaasulay oo ka haray waxa ugu dambeeyay malanayaa hadda raggii aan hadda xusustay ugu dambeeyay waxaan Solteko hadda maayarka hadda waxa weeye hadda isagu meesha ka tagaya yaa ugu dambeeyay oo waxa weeye tanaasulay isla markaana Cabdikariim soo dhaweeyay isagana u tanaasulay waxay socotaba maalmo adugu waxa weeye warbaahinta ay la hadlayeen Cabdikariim iyo raggii isaga xulufadiisa ahaa aadka isugu dhawaayeen oo barka dabcan uu kamid isagana awdanay ninka inuu meesha helo dadkana ku dhiirigelay ninka in la doorto dadkana loo muujinayo ninka inuu yahay ninka kaliya waxa weeye rajada laga qabo inuu soo bixi karo una qalma kursigan maanta ay dhacday doorashadii waxa weeye maayarnimo waxaan filayaa degmada Hargeysa waxay ka kooban yihiin xildhibaanada ilaa 17 xubnood 17kii xubnood doorashadii markii meeshii la tagay si aqlabiyada ayay 17kii xubnood bay isaga cod gacantaaga ma ahayn wax saduuq lagu riday warqad ma ahayn gacantaag baa marka qaab gacantaaga ayay 17kiiba ay waxa weeye ugu codeeyeen Cabdikariim waxa loo doortay ninka asaga ku xigeen ku noqonaya Khadar Axmed Nuur isaga kulli ma og xisbiga uu yahay laakiin waa ninka isaga oo dhici karta maadaama iyaga ay sameysteen isbahaysi ama xulufo markii ay doorashada laga soo baxay si ay u hantaan kulmeena meesha ay uga saaraan marka labada nin baa marka waxa weeye Cabdikariim iyo Khadar baa waxa loo doortay maayarka iyo ku xigeenkiisa maartay degmada Hargeysa iyaga ayaana dabcan sanadaha socdeen doorashada laga gaarayo noqon doona ragga waxa weeye wixii ama eed ah ama ammaan ah marka loo fiiriyo awoodooda iyo waxqabadkooda iyo kartidooda ay fuuli doonto inta waxa weeye doorashada laga gaarayo waxa weeye maamulka Hargeysa iyo maartay waxa weeye magaaladaasi waxa weeye hawlaheeda iyo waajibaadkeeda rag uu saaran yahay nuur waxa xusid mudan markii saa loogu dhawaaqay in Cabdikariim uu soo baxay Hargeysa waxa ka bilowday dabaaldegyo dadku habeenkii farmaajada fadhisa habeenkii meelaha saaxiibana igu la gaari waa ka dhacay habeenkii tu farmaajo ogaan هذا هبيك عجيب habeenka gaaris baan joogay هاي بدل بدل dhageysan waxaan ku sheegay habeenkaas gaaris baan joogay hada korna sheega ma lahayaa idaacad baan fadhiyay toos barnaamij waxa baxay la dhaho weydii dhakhtarka nin dhakhtar oo reer gaaris ah oo dawooyinkan harbolka ama dabiiciga wax ku daaweeya yaa dawadhareedka yaa barnaamijka toos u fadhiyay marka dhakhtarku marka hore موضوع أو مرة كهلا أيو فاهمين كبحية كتب دتك رئيساتش يا سؤالها لوفرة يا سؤالها سوي دية كتب سؤالها يوجا جوابها برنامج كنا هذا ساعة إنه هنجي نرجع لها أما هذا ساعة يبرد
markaan barnaamijkii doorashaduna dee ilaa maalintii baan dadka u tabinaynay annagoo oo barnaamijkii uu bilow noo yahay baa doorashadana dadka kolba aan wuxuu sheegay noon leenahay dhegeystayaal maya doorashadii way socotaa waxaa isku soo hadhay xasan maxamuud iyo farmaajo saddexdii hore markii hore isku hayay waxay ahaayeen xasan iyo shariif iyo farmaajo aan lahayn baa markii dambe waxaa isku soo hadhay xasan iyo farmaajo inta aan wareegii ugu dambeeyay la aadin ee lagu kala bixi lahaa waa kii xasan sheekh maxamuud soo istaagay iyo walaalkay baa waxa weeye u tanaasulay isaga ayaana waxa weeye madaxweynihii dalka noqonaya marka oo khudbad maanta ka jeediyay kooban halka macnaha hadal kooban ka jeediyay kadibna saas loogu dhawaaqay farmaajo inuu codkii ugu badnaa helay madaxweynaha dalka ilaa isla meesha lagu dhaariyay halka markii la marayay horta barnaamijkii dhakhtarka weydii waa ilowle barnaamijkii dhakhtarka weydii waa ilowle مع الدكتور كودي لا فرماجو maxaa ku dhacday intanada meesha fadhinayba dhakhtarku madaxweyne farmaajo soo bixin rabay annagu laftarkanagu dee dad Soomaaliyeed baan ahayn oo madaxweynaha aad baa waxa weeye loogu tuumayay xilligii ra'iisul wasaaraha 6 bilood uu joogay ayaabo uu qabtay iyo khudbado uu jeediyay waxyaabo badan lagu amaanay moogtahay marka Soomaalida aad bay u daneynayeen dee laga yaabo dad waxa jira aan rabin laakiin dadku inta badan aad bay u daneynayeen bal farmaajo in mar lagu tijaabiyo xilkan hal arko bal wuxuu qabtay marka miir noogu dambeysay marka miirsatay maartay marka nimankan ciyaaraha la tabinay marka gool loo liyo saxaabada magac ninkan kubadda tabinaya ciyaarta sama dhawaaqo gool baasho marka farmaajo la taartay ee lagu dhawaaqay cod gadaga ayaga hadii la duubila waxa u baahan nimanka way waasha meesha ka ciyaarayaan horta barnaamijkii dhakhtarka ee socdo bilowga halkii aan ku ilownay waxa weeye meeshii dhakhtarkiina soo farxsan buu baxay ana isla markii barnaamijka soo gabagabeeyo intii waxa madaxweyne u dhawaaqa la dhaari dadkii intaan u tabinay baa waxaan sameeyay taariikhiisan duubay maalintii waan shaqada ku jiray markii waan baxay xaafadda anaga aan deganeen wada la dhaho Ingame Road ku taala wada dheer oo kala taas saan iyadana waxa wadada geela mid kale poster dhahay jirtay dheer oo Ingame bartanka kaga dartay marka waxaan arkay guuladaas hor martaa marka iskuul ibn Sina halkaas waxa weeye ama kaga dhacda wadada Ingame Road ama ay ka soo baxda halkaas markaan marayo haween wadada Ingame Road soo qaadayo oo tan booster isoo soo laabayo xagga ay guulada soo socda oo fara badan oo jeergaamo garaacaya oo waxa weeye farmaajo u dabaaldegaya ya halkaas iga hor yimaada gaari marka saareen wuxuu ahaa Land Cruiser gaari la isaaji waan fiirna haweenkii oo aad u faraxsan oo dibaan garaacay oo farmaajo leh inay xagga wadada booster u sii qaadayeen ba igu dambeysay marka Hargeysa sidoo kale noqotay gaarisana inta aan aniga joogay aan wax ku baranayay noloshaydi ma arag iyada oo madaxweyne ama qof kaleeto oo waxa weeye la doortay oo Soomaaliya laga doortay sida looga dabaaldegayo weligii ma arag xitaa Nairobi baa waxa weeye marka aad fiiriso maalmaha xorriyadda sida 26 Juun 1 Luulyo iyo dadku calamada Soomaaliya intay xidhaan ay dabaaldegaan oo kulamo iyo shirar ay qabsadaan gaaris waxa laga yaqaan calan Soomaaliya ruux qabana dad ruux dirci saqa moogi laakiin wax maalmo xorriyad u dabaaldegayo wax astaan Soomaaliyeed muujinayo waxa weeye ururo Soomaaliyeed wax ma arkaysid marka sida habeenkii farmaajo yaan hadda waxaan arkay dad waxa weeye farabadan oo isugu soo baxay dabaaldeg iyo maartay way moogaysan habeenkii farmaajo sameeyay waa runta hadda dad moogaysan baa isugu soo baxay magaalada Hargeysa oo waxa weeye gawaadhidii fuulayo qaarkood korka ay ka saaran yihiin kuwa waxa weeye ay garab dadaan oo madiinsagiiba inuu meesha uu ku jiro oo waxa weeye u dabaaldegaya guusha iyo aqlabiyadda uu helay Cabdikariim حوي أحمد أدبو ما صدقي الكعسة يكاسها وسوق بجويننا الكعسة مركان فيرنا وقدميتي عبد الكريم وأنا اللي يرى وماركتي سيد هذا اللي يسكن مقطع فرعون ما يركيسه كوري عاصمة ده اللي ربنا بلوس وتشيدين من عمارته مرت بيارد خاصة جديد كي قشن كي وحياة بدن بأمارتين وصاحبك قوانين بعد تمر بأموري تمر عارف عناي بعشي marka eeda badan baa loo soo jeedinayay timirta lafteedu uu xilliga ololaha waxbay ma dambe ilahayd ololaha ku soo dhawaa marka xilliga laakiin waqtigiisa caadiga ah uu maalintii ku dhex jiray dhaliilaa jiray aad iyo ina Axmed Mooge maxaa laga filan karaa soltee kama u dhaami doona caasimadda Hargeysa mise
isna wuxuu noqon doonaa nin dhalinyaro xamaasad u qaada nuuru horta aad u maasanta horta qof walba oo musharax ah marka uu tartamayo ee olaha doorashada uu ku jiro ee kursiga uu rabo qof ka fiican ma jiro waxaad diin ninkan joog ninkan fiican oo ka wanaagsan oo ka qalbi fiican ilaahay ma abuurin haddaad intuu meel kugu yimaado aad dhahdo waxbay kursi xitaa laguma dhigayee banaankaas boorkaas fadhiiso wuu fadhiisan maalinka wuxuu jeebka ku hayo ka hakran mahay waxa weeye wax kasta oo wanaagsan oo qalbigaaga uu ku soo jiidan karo oo waxa weeye cod uu kaaga heli karo iyo sameyn waa walaalka waa in adeerka waa saaxiibka waa nooc walba oo wanaagsan oo qof wanaagsan uu noqon lahaa maalinka yahay maalinka la doorto ee uu kursiga ku guuleysto baa waxa laga yaabaa inta badan qofkii waxa weeye hadii uu ku guuleysto in aragiisaba la waayo telefoonka inuu dansado inaan la arkinba waxa weeye dad fariin u dirto inuu kaga soo jawaabin hadii goof fagaaraha lagu arko inuu maartay dhulunto oo kulli ama gaariga markuu soo baxana uu meel fadhiisto kadibna gaarigu hore u sii galo deena wadana askar ay ilaalinayso ilaa markaa xataa ma gaari kartid ma salaami kartid xataa dan uma sheegin kartid inta hadii goof fagaaraha uu yimaado hadii xitaa su'aalnaada weydiin kan baa dhici karto waa ku yartahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay intay goof fagaaraha soo fadhiistaan qofka in uu su'aal la weydiiyo oo kalsooni u muujiyo dadkana su'aalahooda uga jawaabo yaa aad ugu yar marka in kasta oo niyad wanaag uu muujiyay shacabka guud ee Soomaaliland iyo Hargeysa uu maartay waxa way qulubtooda uu aad u hantay kalsooni badanna uu beertay horta rajo wanaagsan baa laga qabaa iyo inuu wax badan uu qaban doono ilaahay waxa ka rajayna isaga inuu xilka ku asturo ilaahay inuusan ku ceebaynin mas'uuliyadda culus ee loo dhiibayna in ilaahay uu u fududeeyo isagana uu ka dhigo waxa weeye kii ka soo baxa waajibaadkaas loo igmaday ee ka dheeraada iyo maartay qabyaalad iyo musuq iyo wax istamarin iyo maartay wax qabad la'aan in uu ilaahay maartay waxa weeye ku asturo ayaan rajeynaa intaanu maartay ilaahay uu heleeshay rajeynaa rajabada ma runtii laga qabaa marka loo fiiriyo sida dadka ay soo dhaweeyeen sida loo doortay marka waxaan leenahay waxa weeye sida dadka ay kugu liseen ugu hambeey ninkii waxa weeye waayahay aad buu maadsan yahay saaxiibkay ilka casa ayuu kaasi ahaa daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaan ka hadlaynay maayirka cusub ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland oo loo doortay mudane Cabdikariin Axmed Mooge hal arima aniga ku dar lahay nooraba afwani waan ku sadraa maanayaa maalinkii ugu horeysay madaxweynaha Soomaaliland la kulmay ya khudbadii madaxweynaha iyo isaga iyo siyaasiyiintii kale ya waxa weeye toos Facebook markay soo gashay khudbadii idinku daawanay inaan ku soo daraa maanaya 26,000 yaa daawanaysa markaas waxa leeyahay 26 ka soo raacay xitaa Facebook-gii yaa u soo raacaan waxa kale xusun mudan maanta meesha lagu dooranaya Cabdikariim in uu joogay wasiirka arrimaha gudaha ninkii la oran jiray Maxamed Kaahin oo isagu dabcan isagu sidoo kale boogaadiyay waxa weeye maalintii madaxweyne Muuse Biixi uu joogay wuxuu yiri meesha doorashada waan joogaa waa diyaar 26,000 ee maaragtay ruux ayaa la socota dadka kale ee maaragtay reer Soomaaliland iyadana maayar ayuu maanta u yahay waxa dhalay hobalkii caanka ahaa ee Soomaaliyeed Allahu naxariiste Axmed Mooge Liibaan ayaa dhalay dabcan waa nin taariikh weyn ku lahaa ayuu ahaa Axmed Mooge iyo Maxamed Mooge labaduba ayay ahaayeen geyiga Soomaaliyeed gaar ahaan Soomaaliland hoballadii caanka ahaa ee Soomaaliyeed ayay dabcan labaduba kamid ahaayeen rabbi naxariistii janna labadaba ha ka waraabiyo iyo dhammaan dadkii Soomaaliyeed wax galka ama haldoorka ee hore u geeriyooday marka Cabdikariin waxa lagu xasuusanayaa inuu ka soo jeedo qoyskaasi ballaaran isla markaasina odaygaasi Soomaaliyeed ee taariikhda weyn ku lahaa dadka Soomaaliyeed dhaxdooda uu dhalay oo uu yahay midhihii maaragtay Axmed Mooge Liibaan ilaahay marka xilka ha u fududeeyo waa u hambalyeynaa guud ahaan shacabka Soomaaliland waxaan leenahay hambalyo baga ayaad maaragtay codkiini u meel maray isla markaasina aad u hanateen kursigii maaragtay aad ku rajo weynadeen inuu fuulo Axmed aan idhaahdo Cabdikariin Axmed Mooge intaan markale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo